habeennimadii xalay weerar ay ku qaadeen fariisin ciidan oo ay ku leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Goobeen oo kamid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa taasi ka hadlay saakay maamulka Jubbaland oo ku sheegay mid ay khasaare u geysteen dagaalkaasi kooxda maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka xalay ku soo qaaday fariisimaha ciidamadooda ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo Xasan Aadan Ciraaqi oo isagu ah afyeenka ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland oo shir jirayd ku saaka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in dagaalkii xalay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo uu ahaa mid khasaare ay ugu geysteen ururka Al-Shabaab isla markaasina ay kaga qabteen dagaalkaasi mid kamid ah askartooda ay kaga carareen isagoo dhaawaca duleedka magaalada dagaalka oo laga maqlayay deegaanada ku xeeran duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii hore ee xalay iyadoona ay kamid ahaayeen weeraro maleeshiyada Al-Shabaab maalmahan ay ku qaadayeen fariisimo ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo afayeenka ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland ayaa ugu dambeyn ku sheegay dagaalkaasi mid casharo u noqonaya maleeshiyada Al-Shabaab isla markaasina ay sii wadi doonaan dagaalada Al-Shabaab ay la galayaan isagoona xusay in dhawaan ay qaadi doonaan howlgalo Al-Shabaab ay kaga sifeynayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Jubbaland xalay saqdii dhexe ciidamada Jubbaland goobo ay fariisin ku lahaayeen oo runtii magaalada Kismaayo kaga beegan muxuu qaybtan waqooyiga oo waxa weeye ciidamadu halka ay muddo deganaayeen waxa soo weeraray nimankii cadawga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayay runtii ciidamadaasi waajibaad buuxday guteen cadawgii soo weerarayna fashilitaan aad iyo aad u xoog badan bay u geysteen khasaaraha na soo gaaraya ay ciidamadu ay u geysteen cadawga Soomaaliyeed iyo cadawga Islaamkaba waxa weeyaan muxuu ahaa laba askari oo askartii maaragtay cadawga ahayd halkaas waa lagu dilay mid dhaawacana waa la soo qabtay kii dhaawac ahaa waxaan u malaynayaa inay saxaafadu ay muxuu ahaa muuqaalkiisa aragtay wuxuuna hadda ku jiraa gacanta dawlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka waxa weeyaan ku shaqada leh arrimahaas meel isbitaal ah oo maaragtay hadda lagu daweynayay uu ku jiraa runtii waxa weeyaan barnaamijkaasi si guul ah ku soo dhamaaday ciidankuna 24 saac wuxuu u taagan yahay inuu ka difaaco ummadda Soomaaliyeed nimanka dadka dhibaateynaya habeenkii xalay ahaa ciidamada Jubbaland guulahaas ay gaadheen haddana waxay heeganka ugu jiraan maalin iyo habeenba sida ay uga ilaalin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ummadda dhibaateynaysa ee canaasiirta Saciid Cabdi Daahir joogsade telefishinka dawladda Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo